سائلكن wuxuu leeyahay sheekh waxa tala naga siisa oo aad la talisa dhalinyarada ku saamowday dhaqanka reer galbeedka ee timaha sida khaldan u xiirta ama dhinacyada xiira talasi ay waxweeyaan kuwaana qaadanayaan tala waxay ku kooban tahay inaynu ilaahay ka cabsano subxaanahu wa tacaala gaaladu maanta dunida joogta ee reer galbeedku hogaamiyo waxay ku fiican yihiinna waa jiraan oo ay dunida dee ku hogaamiyaan ilaa cidi hadiyad uma siinin hoggaanka dunida ee waa waxay shaqaysteen waxay ku liitaanna way jiraan innaga dhibtu waxay naga haysataa wixii ay ku fiicnaayeen kaga dayan maynee wixii ay ku liiteen baynu kaga dayanaynaa waxay ku fiicnaayeen ee dunida ku maamulaan waa aqoon iyo cilmi baadhis iyo sabir iyo xilmi iyo wixii la mid ah taas baa sababtay inay dunida hoggaamiyaan bacd allahi subxaanahu wa tacaala taas baana diintu inoo sheegtay meeshaynu ka hellaba inaynu qaadanno oo tajaaribtii aadanaha ah waxay ku liitaan aan waxba sheegaynin oo ah professor dhan oo aan nijaasta iska maydhi karin markaad aragto ama waxaan aadamaha u suubanin samaynaya waad ka naxaysaa xaggan kale markuu dhigayana aad arkayso khabiir laga dambeeyo inuu yihi haddaba walaalaha muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay wargaalka waxaad kaga dayataa wuxuu ku dheer yahay ee diine wuxuu ku dheer yahay ee cilmiya kaga dayo adiguna waxay ahayd inaad aadanaha u soo bandhigtid waxaad dheertay dhaqan iyo diin iyo akhlaaqaad rabbigaa kala kulantay haddaba gedinina arrinka waa wixii cilmi iyo ku dayasho u baahnaana kaga dayan mayno wixii aan ku dayashada u baahnayna waynu kaga waa dabagadis saas marka waxaan leeyahay walaal kastoo muslima nimankaa haddaad rabto inaad wax kaga dayato cilmiga iyo aqoonta kaga dayo laakiin tibadhan laga xiiray iyaguna kumay horu marin mara la gaagaabsada ama la daldalooliyana kuma horu marin kuwooda horu mariyeyna maaha kuwa waxaa ka shaqeeya xataa kuwooda horu mariya waxaan ka dambeeya qolada idinku daawataan inta badan waxay u badan yihiin kuwa la yidhi dadka madadaaliyo dhaqanka ka bedela kan heesa iyo kan boodbooda iyo kan kubadda ciyaariyo waa kooxda entertainmentka ka shaqeeya bini aadamka inay madadaaliyaan oo mashquuliyaan yaan lagu mashquulinine meesha wax jiraan qabo wallahu aclam fiihi wa fii cilmihi saa'ilkani wuxuu leeyahay malah waa qurbajooninkaneye sheekh waxaan imi meel airbood ah ama meelahan diyaaradu ka duulaana marka ay baa wax baadhayay oo ilaalada ka mid ahaa aygii wuu i qaniinay qaniinyadiisii marka waxaa lagu ganaxay lacag oo la iga siiyey akoonkiisii lacagtaa ma qaadan karaa oo ma ii bannaanta sheekh cabdinaasir xaaji axmed bad weydiinaysaa kula degan جزاه الله خير الجزاء سائل كان لا دحولي الشيخ وحان هاي أرضي برتي علوم تشريعة دون يا إنه برتو علوم تا السياسة سدا درادد ما يقول ترنسان برتو علوم تا محاسة لقى سينسا علوم تا أرتسك الله هذا لما أنت مركز الأسكو ضدره وعقل بني آدم وحيك سوفلي oo ku salaysan waliba qofku sidoo nolosha iyo adduunka iyo jiritaanka u arkayay markooba ma ku sheegay waxa weeyaan culumta maadiga inta badan la iskuma khilaafo culumta maadiga inta badan ma sheegto qofkii soo saaray wuxuu rumaysnaa مثلا قاعده xisaabta ma ka tarjumayso ninkii soo saaray wuxuu rumaysnaa ma sheegaysa الجبر دقتا الجبر والمقابلة الجبر وان المسلم صوصاري لكن المسلم صوصاري كمان مغنيس اللوغريثم بعض دقتا
اللوغريثم ومقعي محمد الخوارزمي اللوغريثم واسقل دنو بالو أخريه والخوارزمي ويان كما ترجميش قرن ميسيد مركا أقوانت مادقة هي مكلا لها صبغو يهودية أما بوديستا أما كريستانا أما مسلم أما كلا وهي حقائق اللاب كاللقيو أما كالكوليشن لا سمايو هذا يصح نقطنا صحة هذا غلطين غلطي أما أقوانت أراد بني آدم كو صلايسانيا تجربة دقريني وحي كلا لا هي مدارس فكرية سكول اوف ثوتس وكوا مدك تحيقا كوا بدح تحيقا كوا هلكا كان كوا شيوعيقا كوا كابيتاليستكا كوا عين كان محل لوكلا كوا كوي فيسيكس ميولي كوا كابيتاليستكا هي كوا شيوعيقا هي كوا يهوديقا ما كلا له لكن مركات مادا ارت كا waxa loo yaqaano ayaa mas'ala kasto la soo qaado inta theory oo kala nooc lagu sheegaya oo school of thoughts la leeyahay professor Hebel wuxuu hogaaminayaa ra'yiga caynkaas kalena wuxuu hogaaminayaa ra'yiga caynka nin waliba adiladiisu ka sanay xujadiisu ka sanay waa araa la dhigayo taa macnaheedu waxa weeyaan araada aadanaha caadiga aan ahayn talaabka gashaa inteeda ugu badan le qofku wuxuu rumaysay nolosha wuxuu ka rumaysay sawir ka dhex muuqda weeyaan saadaradeed ba araada kapitaliska rumaysani liberalism مثلا ninka rumaysani ee siyaasadiisa ka dhex muuqata sidoo dhigayo liberalismka communismka ka rumaysani siyaasadiisa ka dhex muuqata maxay siyaasadda sidoo dhigayo basis ku noqonayo ولذلك waxa dhiganaysa waxa weeyaan waa tajaaribtii bini aadamka oo lagu kala gadisay maadaama ay tahay dhaqaale siyaasad taariikh waxa soo dhan isku soo dar xaq iyo baatil ba way leedahay waxaan ku talinayaa qofka muslimka ee raba inuu dhigto وتجاربتي آذاني هادكتو لكن هادكتو إساقو هايستا وحا وحق يبادل كاكو خالا صوعه وصوشي دي ديني دين تادو أي شيء يسي وين أتقرن يسا محا صحا محا قلدان وصوشي مركا يكون ركبانتو وحا كالوردن واد بران كارتا واد كالا قران كارتا مركا محا كيسو سوابكا ودوية سيداي سوابكا وكالا دودة محا قلدان محا لتوسين كرا محا لغا فايدة سكرا محا لغا فايدة سكرين المسلمين تي هوري dhaqankii iyo diimihii dadka kale ma ay qaadan laakiin haddana tajaaribtoodii wixii faa'iido ku jirtay way qaateen mid dagaal ha noqoto مثلا dagaaladii nabigu galay khandaqa kan iyo waxana waa tactic beershiyana muslimiintii beershiya ka timay soo kordhisay waa la qaatay diiwaan galintan askartiya maamuladan iyo waxa ka nooc ka mid dawladda kale laga soo qaatay waa la qaatay yani wax badan oo la qaatay baa jira wax laga tagayna waa jirta marka waxa doonto baro aqoon laakiin bara adigoo dhisan oo bays leh oo aan lumaynin mushkiladayna qabsatay ugu badan ba waxay tahay inaan koo maran ba inta halkan laga diro malcaamadii diini ugu dambeysay ayaa raashiya loo diray dabeetana xaq iyo baadilkii intuu kala garan way isagoo communist soo noqdo inaan koo maran oo malcaamadii diini ugu dambeysay Mareykan loo diray ama Ingiriis loo diray dabeetana isagoo liberal buu soo noqday ama afkaarta rumaysan base kan ku dhisanay hadda base kaagu dhisan yahay waxbarashadu dhib ma aha waxbaro wallahu a'lam ilkan wuxuu leeyahay Soomaaliya sheekh ma la dhihi karaa waxay ku sii socotaa wadadii Andalus ay ku luntay ka jirta dhibta ka jirtana dadkeeda geystay dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eeda saaraan dadku waxay jecel yihiin inay yiraahdaan Ethiopia ina jabisay waxay jecel yihiin inay yiraahdaan galada inoo tashatay oo Mareykanka iyo Ingiriiska yeemayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinaya waxay jecel yihiin inay dawladaha jaarka China maxaa la yiraahdaa Kenya iyo kuwan bayna baabiyay waxa ka jiraan runaa soo sheego inaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iideystay waana sida caadiga bini aadamku u fakaro Ethiopia maxad dantaada u raacatay soo doqonnimo ma aha inaad la timaado meesha Ethiopia maxad dantaada u raacatay waa doqonnimo Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin أنا هيدنا دنتي إذا إلى تشوتشيا كينيا وحا أي وده دان مثل حدي يجورين أنا هيدنا دنتي إذا إلى أمريكا إنجليز بقى تشوتشيو وحا ودنا دان يجورين
nebi maxamed iyo saxaabadii markay jabeen lama odhan khaalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idinkaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idinla dhigay lama odhanin ee markay jabeen markay iyagu taktiigii nebiga khilaafeen ayuu khaalidna godoloolada arkay dabeetana uu ka faa'iidaystay khaalid oo gaal ah ayaa wuxuu arkay godoloolada dabeetana meeshii dalooshu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay dabeetana saxaabadii waaweyneed la yaqaanay nebiga adeerkii waa markii la dilay xamse iyo raggii la mida dhulka loogu tuuray markay muslimiintu yidhaahdeen anna haadana ilaahay baa u jawaabo wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum qul huwa min cindi anfusikum malik ibnu nebi nin la odhan jiro caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu odhan jiray isticmaarku maaha mashkiladuye waa qaabiliyatu listicmaar buu leeyahy ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buu leeyahy gumaysigu weligii buu iska jiray cid rabtay inay cid gumaysataa waa iska joogtaye dee nin la gumaysan karunbaa la gumaystaa soomaaliduna maxay yidhaahdaan miskiin baa miska la fulo leh markaad miskiinka noqoto ayaa dee dadku ku kooraysanaya markaa soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas laakiin dhibta ma etoobiya ku haysa mise kenya ku haysa mise maraykan baa ku haya mise cinkan baa ku haya waa dhibta innagaa isku hayna innagaa isjebinay innagaana weli isdilayna innagaana rabna weli inaynu kala guurro innagaan tuulana tuulada ku xigta heshiis la ahayn tuulana tuulada ku xigta heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa marka haddaynu innagu caqli keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa waddankeenniina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa haddaynu caqli keeni weynana dee waa layna gumaysanayaa adeer ninkaan tashanaynin dee waa loo taliyaa carruurta yaryar ma tashan karto markaa waa loo taliyaa reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badh baa wisaaya u baahan isma maamuli karaana in la maamulo u baahan marka ergeyga jamciyadda qurmo ka dhaxaysaa laynoo soo dirayaa siduu inoola ego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay waxa saxayiin iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino idhaahno askartiina wax may helin qoladaasina wax may helin oo la yidhaahdo fankaa laydinku darayaa projectka sanadka dambe eu-da idinku daraysa ama usaid baa laydinku daraya war dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi masaakiintaa ku dhergi lahayd haddii cidi ku dhergayso miskiinkan yaa la waxsiiyey dun hayaa imisunbuu lahaa yaa la waxsiiyey marka waxaan uga jeedaa soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulaye dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo in adeerka iyo kaka sii dambeeyaan isdoonaynin haddaynu innagu caqligu lagu wada noolaado keenno gaalada waxay idhaahdaan saddex dariiq baa jira oo bini aadamku wuu u kala baxo bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yidhaahdo nabad waa lagu kala baxaa bini aadamku inuu musaalaxa galo win solution waxay gaaladu yidhaahdaan intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaha war bal annaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka taga annaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadno hore u soconnana wuu kari karaa bini aadamku inuu garramona waa lagu kala baxaa waar heshiin weynaye ha laynoo gar qaado ilaahay kitaabkiisaa cid inoogu saar inoogu gar qaada marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garranno kala baxno haddaynu soomaalinay saddexda midna ma ogolin inaynu iscafino oo iska wada noolaanno ma rabno inaynu win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninno inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabado yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalinba ka laga yaro dabaabado roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waa un halkeennii baynu ka wadaynaa un sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 60 sano ama 30 sano la sheegay saa baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaallayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliya waxba etoobiya ku xagxaganina ama maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu aclam
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. سؤاشن oo ku soo gabagabeynaa insha Allah su'aalaha waqtiga iska dheer iyo xilli dambe ah iyo sheekho maanta dhan marna safar aha marna darsi ku jiray wuxuu leeyahay saa'ilkani wadamada qurbaha wadan kamida oo gaala ah siyaasiyiintiisa ma ku biiri karaa ama dadka siyaasadiisa ku jira ma ku biiri karaa oo xilma ka qaban karaa ama madax ma ka noqon karaa? أيها الأحبة warkooban aan idiin sheego waxyaabaha aynu maanta isku haysanna waxaa ka mid ah waynu isaqoonsan weynay ama waynu diidnay in cid walba loo daayo waxay garanaysaa. anugu macallin baan ahay. macallinka ma taqaanin? macallinku waa nin daris soo diyaariyo dabeetana si fiican u sheega. macallin baan ahay, mufti ma ihi. culimmadiina fatwoota ha la weydiiye wixii masale fiqiga qabtaan. wallahu aclam. bismillah. waxay la tahay waxa dunida ka dhaca waa kala nooc. dadka badh waxay iska jecel yihiin wixii meel farka ka taagaba in laga daba taago. wax saxana ilama muuqato. wax saxahay waxa weeyaan islaamka wax ka mid ah inaan la qarin. islaamku inuu noqdo ciddii rumaynaysaana cambayina ay u rumeeyaan, ciddii ka gaaloobaysaana cambayina ay uga gaaloobaan. hadday mushkiladii timaado oo nin caalimo la garanaya uu ka hadlay kama laazimayso in dhammaantood culimmada kaloo dhammina ka hadlaan. maalan masala timi shibli baa hadlay maxamuud, inta kale hadday iska aamusnaato waxba sheegi mayso, waayo masaladii xujadii og. qasab maaha in dhammaantood ay madax ka koow. asalku waxa weeyaan waa in dadkan la dhiso. oo maxaa laga dhisayaa? bini aadamka waa in mawaasiin la siiyo, miisaan uu xaq iyo baatilka ku kala garto. oo laba qadiyadood baa kala jira: shubhada radinteeda iyo xaqa garashadiisa. waxaa horeeya xaqa garashadiisa. qofku hadduu miisaan u haysto maxaa baatila maxaa xaqa uu ku kala garan karo, waa wax fudud. iyo shubha timaada wuu ka qanci karaa. haddii si aanu haysanin mawaasiintii rasmiga ahayd, dee shubahaadku maalin walba kunbaa soo baxa. shayaadiintu maalin walba intaasoo cusub bay alifaan. shubha uun lama wadayo warkeed ee waxaa asaloo culammadu inay diinta bayaaniyaan, dadkana u dhigaan. waanan isleeyahay in badanoo ka mida waa la qabtaa. wax laga gaabiya haddii jirtana dee in laysku boorriyan weeyaan. wallahu aclam. masaladan waa masalo fiqi ah, marka baac iyo shiro bay ku saabsan tahay. waxaan ka hormarinaynaa haddii su'aalo mawduuceenna ku saabsan haddii jiraan. nacam, fadal. shareecada islaamiga ahi kow horta sharciga islaamiga markaynu idhaahno sharca la dabaqay macnaheedu ma aha jinaayaadka. iska badh baa waxay u haystaan axkaamil jinaayaat shanafara haddii la dabaqona in islaamkii la dabaqay, haddaan la dabaqinna inaan islaamkii laga tegay. islaamnimadu waa ballaadhanta islaamkao dhan aan qaadanna marka hore. waa mid. marka ay timaaddo axkaamta ayaa xaq u leh inay dabaqdo, dee maamulkaa u leh. haddii kale aynu idhaahno qof waliba ha dabaqo, dee ninba ninka ku xiga hadduu intuu gacanta ka jiro yidhaahdo tuug buu ahaa, socon mayso. wuxuu u baahan yahay nidaam de sharci oo maxkamad loo, ijraa'aat loo, qofkan isdifaaci karo, xuquuqdiisii uu heli karo, sharci lagu xukumi karo. taana dee waa system inuu jiro. xukunka marka lagu furiyo inaan qaadiga isna madaxa laga goynaynin, dee dawlad iyo system tahay wax kane. intaad mid iska soo qabato tidhaahda qisaas baan ku fuliyey, aadna reerkooda ay kugu fuliyaan mid kaloo baatila, dee waxba iyana socon mayso. idan axkaam markay timaaddo maamuloo bulsho ka dhaxaysa, dee waa wixii laga rabay inay dawladda iyo systemku fuliyaan. maamulkay u taallaa. maamullada qaarna waaba iska daciif oo u malayn maayo xuduuddaaye waxyaabo ka fudud baa looga taaglaayay fuliya. midna ogsoonow, tuulo yaroo gaari dunidan islaam ma fulin karto. haddaan caalamulislaam oo dhammi bislaanin, inta ugu badan isku xidhmin, cunaqabatayn dabad ka timaad iyo dagaal dabad ka yimaadaba aanay iska difaaci karin, waxba sheegi mayso. intaad tuulo qabsato 5 qof gacanta aad goysid, dabeetana dawladda ku qabsato kaloo gaalo ahi,
waxba xukum fulintaasi ma aha masaakiintun baad meel kale ka sii tuurtay marka asalku wuxuu yahay waa in la helaa systemkii sharcigan difaaci lahaa bilyan iyo dheeraadkan muslimka ee dunida ku nooli waa inay kitaabkooda difaaci karaan wallahu aclam bismillah ninkan su'aal buu ku soo qoray ingiriisi. Does a Muslim allow to attend non-Muslim burial? qof muslima ma ka qayb geli karaa aas qof aan muslim ahayn la aasayo? jinaasa caadiya oo haddaan wax sharciga khilaafsan aanu jirin dhib uma arko. haddaan kor idiin maqashiina su-aasha ninka walaalka uuna weydiiyey taqriiban waxaad is leedahay waxay xiriir la leedahay ama calaaqa la leedahay mawduuca sheekha uu ka hadlayey. wuxuu yidhi tabliiqa jamaacada tabliiq la yidhaah maxaa masaajidda in ay ka hadlaan maxaa loogu diiday? marka sheekh mustafa fadl annagu kollaytaba masaajidkeenna dad intay noo yimaadeen aan u diidnay ma jiro. sheekha markuu ka hadlana kelimad baan raacsan doonaa insha allahu taala. fadal sheekh. waxaan u malaynayaa horta wixii dee maamulka ku saabsan in maamulada masaajidda la weydiiyaa may ahayd hadday jirto maamullo masaajida u diidan. qofku hadduu diin sheegayo xaqna uu sheegayo in loo diida maaha. qofka isna raba inuu wax sheegaa waa inuu iska hubiyaa waxa uu sheegaya inay diinta ka mid tahay. maalan xadiis baad sheegaysaa haddaday nebiga caynkaa yidhi mana odhannin waa ceeb intaad dadka is hor taagto nebi maxamed waxaanu odhannin inaad tidhahdo calayhi salaatu wasalaam nebigaa waxaa yidhi. idan hadduu qofku waxa uu sheegaya wuxuu iska soo hubiyey ay tay مثلا تبليغات sheegtay haday riyaad saalixiinka axaadiista ku qoran sheegaan quraanna sheegaan dadkana ilaahay ka baqay yiraahdaan wax loogu diida garan maayaanu day xadiis sax ay sheegaan laazim maaha qofka wax sheegaya inuu wax walba yaqaano laakiin waxa laazima waxa uu sheegaya wuxuu garanayo aakhiro uu ku badbaadaya inay tahay waxaanad garanaynuuna isku sheegi oo intaad riya ka bilowdo iyo meelaha kan waxaan jirin ha sheegin laakiin waxaad sheegtaa maxay wax diina oo sax ah hadaad sheegayso in lagu diido maaha wallahu a'lam. bismillah kusina sheekh sugaayr hortana waxaan idin sheegayaa sheekh Abdulaziz bin Baz kitaab la yiraahdo at-tabliigh ma lahum wa ma alayhim ayuu wuxuu sameeyay muqaddimah aniga akhriyay kitaabka ana hayn jir lakad meel uu iga aadama qan waa iga dhumay sheekha marka wuxuu yiri nimankaas tabliiqa la yiraahdo wixii ay ku toosan yihiinna ha lagala tacaawuno waxay ku qaldan yihiinna ha loo naseexeeyo masaajiddan ayaan loo diidin mawjada waxay ku qaldan yihiinna ha loo naseexeeyo wixii ay ku asiibaanna ha lagala tacaawuno ha lagu kaalmeeyo mawjada marka tabliiqu naftiisana waa tafaa'um kala duwan yahay nimankan tabliiqu hadda ka yimaada urdun iyo falastiin iyo khaliijka meelaha qaarkood sacuudiga iyo kuwait iyo niman tabliiqa oo culumaa oo runtii maaragtay xagga caqiidadooda ay fiican tahay baa noo yimaada mararka qaarkood marka masaajid bay yaqaanaan oo aadaan annaga nooma yimaadaan nama soo maraan laakiin tabliiq runtii waxaa jira niman xagga caqiidada runtii maaragtay khuraafa iyo waxyaalo badan iyo axaadiis ma garanaysaa daciifa iyo khaasatan ragga eeshiyaanka ah oo eeshiya ka imaanay indiya bangladesh iyo bakistan kuwa naftooda haddii wax wanaagsan sheegayaan annagu waxa waaye fatwada sheekh bin Baaz baan qaadanaynaa marka runtii xaalad dadka muslimiinta ay marayaan dadka muslimiinta maanta waa in la jamciyaa waa in la aruuriyaa mawjada dadka muslimiinta waa in la madeeyaa wax badan bay runtii heshiisku iyo wax isku qalabsan wax yar waa نعم فضل شيخ
أوردان sheekha su'aasha uu yiri warka murtidiisa waxa weeye kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay waa yaala waa kan masaajidka meel kasta saaran dadka muslimiinta maxaa ku dhacay kitaabkii maxay ugu dhaqmi laayihiin u tabaqi laayihiin waa anaga sheekha weydiinaya fadlan بسم الله سؤاشي هوري ولي هدانين كدارو حقه يقفكو اسكما حدنا قالكو هدو حق الشيقة ولا قاضنية قف مسلمة كالي قالكو هدو حق الشيقة ولا قاضنية حديث أبي هريرة الشيطان كما تشنكي حديي صدقة لو ديبي أبا هريرة النبي قول ديبي تنا هبين كبا متشني ويما ضايو حضاه أبا هريرة قبطي سوى ملا صوت الشكوليت وقبطي ويقول عروري يمان كاي مدد باهانا وكاسا اسكا كي عفي واسكا سيداي إلهي بأن النبي محمد سوى وحيودي عليه الصلاة والسلام دابا تنسو بحبو النبي قول حويدي أبا هريرة ورنكي حالة تمحوكو يدي وحيد إلهي رسولك السيو وحبو حدا يوم كان قبطينا وان باهانا اسكا كي دابو دوان عفي بان بكو شاقا وصار نقونا يا أبو النبي كويدي أبو هريرة هبين كي دنبا وودي أرقروبة هذا نكيو دس لا يمي هبين كي دنبا واقبطيوه سيدي بو هدنا وعلى وارسكا كي سيدا أبو يلي ضد باهانا يعين كان باكا يمو تشلع سنة بس كي سيدا أبو هريرة وان حرست صبحي أيو يمي صحابة نحرستو دا داركيسا توقوي يانكاو سيدا يدينيا أيو يمي wuxuu nabigu ku yiri xalay ta muxuu yiri xalayna saas ugu yiri buu yiri nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri been buu ku sheegay uu soo noqon doona habeen saddexaadkii buu qabtay habeen saddexaadkii markuu qabtay ayuu yiri siida war waadigi beenta akhrinayay caawa cilman ku baraya qaada buu yiri siida sheeg buu yiri wuxuu ayad kursiga haddaad habeenkii akhrisato شيطان يجيبن بكو سو دوان مايا وحوغاغا علمك ابو شاغي وشيطانكي وحدي دبتنا و سي داي صبحي بن كويد عليه الصلاه والسلام ما فعل صاحبك محو سمي صاحب كان محو يالي ورد الى رسولك سي وحو حلي تشاغ ور علما كبريا سي دابو يدو اي شيخ بانو انت سو يشاغ كرسي هذا اخرده شبانكا يا waxaas waxba ka qaadmaya sadaqaka wa huwa kadhub nabigu rumbu ku sheegay isagoo beenaala idan hadii shaytaan cilmi laga qaatay cidi kale cilmi sheegaysa haduu cilmigu sax yahay meeshu doonaha ka yimaado wala qaadanaya cilmigu haduu sax yahay oo aliya rasuulu ku dhaweynayo wala qaadanaya sheekhan su'aashiisa waxay ahayd hadii islaamnimadii la googoynayo muslimiintu xaqay ku maqan tahay دار ما مسلمين تبقى قيب كي ينكوا جوجوينية ما مولدوا ده هالنقطان أما إنك يا قبائل كأنها نوعاته إنك الإسلام نما مخوض دقنا هذا نضاعد نقول الإسلام نما ده خود دقنا ودور سوما يا كتاب كان عدي فعدنا وهلية لكن هذا إننا نقول سكود دقينين أي نبركة وهيسانه marka la dhintaa un baynu wadaadka u yeedhnaa iyo kitaabka quraanka in laga barakaysto ficlan baraka weeye laakiin marka la rabo in la ismaamulo isaga waa la ilaabaa dadkii difaaci lahaa waa muslimiinta hadday muslimiintu iimaankoodu uu xoogoobana ilaahayna wuu u gargaarayana kitaabkan way difaaci haddii se iimaanku uu sii daciifayo oo qofkuba naftiisa iyo shahwaadkiisa uu ka xoog badnaan kari waayo waa adagtay inuu diin kale na difaaco inta aan ogahay wallahu a'lam bismillah su'aashan ayadu waa sheekh waa English wuxuu leeyahay University of Islam means what عالمية الإسلام عالمية الإسلام معناه muxuu yahay أنا شمولية دي تقريبا سادس دينتي أنا هاد ليوردن هدادي فهم كروي دي ساعات
talow 5 minute ma kugu fahamsiin karaya saashu waa taas islaamku waa universal macnaheedu wax weeyaan koow basharkoo dhan baa loo soo dejiyey intaynu masaajidka la gallo haddaynu idhaahno yaa ahlal kitaabi quulu ahlu kitaab halkan ma joogo ahlu kitaabka xaggaasay joogaan waa inaynu iyaga ku soo nidhaahnaa qur-aanka imisa ahlu kitaab la hadlaya intayn leeg mise aayadood baa yaa ahlul kitaabi la leeyahy ma innagaa isku akhrina mise ahlu kitaabka inuu sheegna kuwii ilaahay la hadlayay miyaynu gaadhsiinay mise innagaa intaynu masaajidka hoosta ka xidhanno isku nidhaahna yaa ahlal kitaabi baa ilaahay yidhi idan kitaabka qur-aani albashar alinsaan meeshu doonaba ha jooga baa loo soo dejiyey waxaanay saaran tahay mas-uuliyaddu inay gaadhsiiyaan dadka muslimiinta ah kaasi waa mid waa universal dhankaa marka laga eego basharka iyo nawciyaadkiisa oo dhan jinsi gaari ma leh carabi ma leh ee waa ajnaasta bini aadamka oo dhan noocu doonaba ha noqdee marka laga eego xagga waqti gaara ma ahayn oo cahdigii nebi maxamed iyo wakhtigaana inuu sax ahaa iminkana aan la qaadan karaynin sax maaha ee waa inuu universal yahay ilaa qiyaami saaca in loogu talagalay inuu jiri karo ama uu noqon karo wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado idan inaha iyo intii ka horraysay wixii aan sheegayba waxay tilmaamayaan in loogu talagalay caalamka dhammaantii lilcaalamiina nadiiran inuu noqdo ayaa loogu talagalay wallahu aclam جزاه الله خير شيخ مصطفى محاضرة قيمة وما شاء الله أن آديات أنفلي أن تقول فهذه ستين إله ميزان كيس حسنات كوصار أننا هنقدقوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الشيخ أبو العينين بنكوري جنيا برنامج كبرتو صبحي بعد الفجر يا برنامج كبرتو دنبو ينو شيغيا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سائلك wuxuu leeyahay hadii waalidka iyo caruurtiisa is afgaran waayaan maxaa dhib ah oo ku jira waxay hadeen la yiraahdo maxaan dhib ahayna ku jira waalidka iyo caruurta is afgaran waayaan waalidku nolosha uu soo noolaa tajaarib buu hayaa aqoon buu hayaa diin buu hayaa dhaqan buu hayaa siduu ugu gudbinayaa ilmihiisa haddii aanay isfahmaynin afku wax weyn maaha barashadiisu ilaahay baa maskaxdeenna ku rakibay sida loo barto waxaa lay sheegayay gabadh soomaaliyeed oo nin maraykani qabo oo carruur badan u dhashay oo dhammaantood af soomaaliga ku hadla waxaan ku idhi say u dhacday waxay dhahdeen hooyadoodunbaa waxay go'aansatay inaanay u jawaabin haddii uu af soomaali wax ku weydiin waayo waa ilmo nin maraykani dhalay laakiin hooyada soomaaliyeed waxay ku dadaashay inay ilmaheeda iyadu ma af ingiriisi laha waa gabadh aqoon oo wax baratay laakiin waxay rabtaa luqadeeda inay barto dabeetana ilmaheedii yaraa waxay ku bilowday iyadu inay af soomaali kula hadasho aabbahoodna af ingiriisi kula hadlaa ilmaha yar isagoo bilinguala buu joogaa aabbihiina af ingiriisi kula hadlaya hooyadiina af soomaali kula hadlaya intaasoo carruuray dhashay dhammaantood af soomaali ku hadlayaan hadday af kale wax ku weydiiyaan way u dhagoolaysaa un lama hadasho aniga maaha un bay leedahay qofka lala hadlayaa dabeetana wuxuu ilmuhu ku qasbanaaday si hooyada xidhiidh ula sameeya inuu ku hadlo maxay iyagoo yar waxaa kaloo arkay tajribo uu sameeyey nin carbeed oo aqoon-yahanah ilmihii uu dhalay ayuu xaaskiisa wuxuu ku yidhi adigu lahjadda kula hadal inay labnaaniyiin baan u malaynayaa lahjadoodan maxalliga ah adigu kula hadal buu yidhi aniguna fusxadun baan kula hadlayaa ilmihiisa isagu fusxada quru kula hadlaa islaantuna lahjadday kula hadashaa ilmihii 3 jir markuu marayo fusxada iyo lahjadaba si fiican buu yaqaanaa aabbihii markuu la hadlayo luqa alcarabiya alfusxa taa qur-aanku ku qorayo ku hadlaya hooyadii markuu la hadlayana af carabigan jajabana suuqa lagaga hadlayo odaygaa wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya oo kaga warramayo waxyaabaha qariibka ee aan arkay waxa ka mida buu yidhi hooyadii baa odhanaysaa aabbaha waxaayo waxaa ku dheh
iyada lahjad bay ugu sheegaysaa markiiba intuu tarjumo aniga fusxadun bay ugu sheegayaa buu leeyahay waayo aabbaha fusxadun baa marta waxa kaloo lagula hadlaa ma jirto luqa alcarabiya alfusxa buu ku hadlaya waxaa dhib nagu noqotay unbuu yidhi maadaama aanu laba nin nahay luqada carbeedna dhadig iyo rag ay leedahay maanan haysan buu leeyahay dee luqadii qaybteedii dhadigga ka warramaysay ciidankooda markii dambe ilaahay siiyey buu yidhi markuu kan 3 jir maraya mawluud kalaan helay oo yar oo inana negotiationkii inantii baa iyana wararkii ka soo qayb gashay saddexdayaduba fusxadaan ku wada hadalnaa buu leeyahay waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yariyey haddaad ku tijaabiso afkaas dhegtiisana uu ku dhaco guriga marka la hadlayana uu afkaa maqlo waayo ilmuhu markuu yariyey ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa isku day noloshoo dhan isku day buu ku bartaa marka hore wuu ururiyaa dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo keen baad leedahay wuu keenayaa hoobaad leedahay laakiin isagu ma odhan karo waayo weli makhaarijtii ma helin makhaarij alxuruuf halka ka soo baxaysay tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo si qaldan buu ku dhawaaqaa inta hore oo dhan carruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn inta hore hooyadoodunba afgarata oo tidhaahdaa waxaasuu rabaa saasuu ku leeyahy waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya laakiin tajribaduu wadaa muddo markuu tijaabada wado marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo sax u soo tuuraa inta hore ilaa 200 oo eray buu bartaa intaasuu isku celceliyaa ilaa 4 jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa ilaa 700 oo eray waxbay soo gaadhaa 5 jir 6 jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo idan waalidku halkaad adigu af sawaaxili jajaban kula hadli lahayd af soomaali fasiixa kula hadal isagaa baranayee innagu markaynu hadlayna sawaaxili jajaban baa ku hadashaan soo maaha marka intaad sawaaxili jajaban kula hadli lahayd aduu af soomaali saxa kula hadal isaguna wuxuu baranayaa maxay af soomaaligaa saxa ha ka warwarin sawaaxiligana berrito kuwuu la cayaaraya carruurtaabuu ka baranaya kuwan dabadda uu kula cayaaraya ama iskuulka markuu taga markaan berru toos isagana uu baranaya laakiin tiisa kale waa inuu sugaa intuu guriga joogo taanu meel laba u bixinay guriga joogo waa inuu afkiisa hooyo u sugi karaa afkuna de waa xidhiidhka waalidku wuxuugu sheegi karaba ilmuhu dhalay af kale kuma sheegi karti kiinebaa af kale ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan hindida bay yidhaahdeen afku urdugu kama lumo indiya marka la joogo waa meel diimo badan oo afaf badan kumaankum af lagu hadlo kumaankum diimood yaalliin saa daraaddeed qofku markuu waddankiisa joogay buu feejigaayoo soo jeeday markuu indiya joogay buu wuxuu qabay dagaal ah afeed iyo diimeedba dabeetana wuxuu ahaa qof feejigoo soo jeeda bilcagsi innagu markaynu soomaali nahay afka kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi af qurun buu ku hadli jiray diinta kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi diin quru wada haystay oo ilmaha macallin qur-aanka iyo iskuulka kuwa jooga iyo kuwaasaa diinta u dhigayay aabbuhu diinba uma sheegi jirin markaynu halkan nimi xaggaa markaynu joognay markaa aabbuhu wuxuu ka adkaa inuu ilmahaasi aanu gaajoone wuxuu cunay inuu guriga keeno hooyaduna waxay ka adkayd inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho oo hagaajiso intan amaa wixii af iyo waxbarasho iyo bulshadoo dhan buu wadaagayay meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa odayguna beriskiibu ku maqan yihin islaantuna way karinaysaa oo yaaba baraya kan markaa afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo hidaayaa baraya laakiin ninka hindigii markuu halkaa joogayna isagaa diintiisa ilaashanayey oo afkiisa ilaashanayey oo dhaqankiisa ilaashanayey oo waayo jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay saa daraaddeed wuu ka ilaashanayey iskuul gaara buu lahaa af gaara buu lahaa dhaqan gaara buu lahaa dad gaaruu ahaa oo dad kale la degan halkan markuu yimina isagu waa sidiisii waa ninkii ilaashanayay afkiisa iyo diintiisa laakiin adigu waxaad tidhi xayallah dee uun dadka ha ka mid noqdo
dee maahmaaheennana qaar qalloocan baaba iskaga jirayoo meel lagu ilaayay haddaad tagta ishaa la iska ridaayo carradaa tagtaa camalkeed la yeeshaayo malaada inaynu dadka ku daransanno anigu waxaan is leeyahay dadkaba kamaynan yaraaneene ummadahaynu biirinayno sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay af soomaaliga waxaa la qoray 1972 maxaa u diiday culummada in ay dadka ku wacyigeliyaan af soomaaliga in la barto waa ishtaka culameed baan u malaynaya waxaad wado culummadu maxaan af soomaali ahayn ay diin ku sheegaan yani af soomaali ay diin ku sheegaan maxaad rabtaa intaan khudbadda imaado un inaan idhaahdo af soomaaliga ha lagu sheego halka kan markii waddanka la joogay dhibtani kuma badnayn dadka markii qurbaan loo soo baxay bay ceebtani muuqatay oo dadku la wada arkay in luqadii iyo dadkiiba sii lumayaan ama sii hallaabayaan saddex guruube aan sheegay aan lahaa af soomaaliga way u dadaaleen saddexdii kooxood saddexdooda kooxoode ka dambeeyey mararka qaarkood waxaan idhaahdaa iyagu umay dadaalin culammadii hore maadaama ay luqa soomaaliyeed oo badhax tiran ku soo qaateen cilmiga iyadoo badhax tiran bay ku gudbiyeen culammada dambe in badanoo ka midi ama sidayday iskuulley ka soo baxeenoo waa bowsadeen ama sida sheekhan iyo culammada la mid ay iskuulla galeenoo jaamacada kaga soo baxeen marka af carabigaa ku badan markay laqbihii wuu ka sii lumayaa oo tii may xejinnin culammadii hore lahaayeen in yar mooyaane qolada warbaahintee dambana iyana waa la mid qoladii hore wax ku qoran af ingiriisi ama carabi baa loo dhiibi jiray dabeetana tarjama fawriya inuu markaaba af kale soomaali ku tarjumaa baa laga rabay waana la tababari jiray iminka dadkoo dhammi waa wada wariyo oo website iyo jariidad iyo waxbuu qoraa xataa af soomaaliga daaya nin waliba ka gurigooda lahjadda gurigooda lagaga hadlaa buu qoraa saa daraaddeed inaad fahmin baabay u badantay waxaa dhacday markaa warbaahinta dambana afka soomaaliga waa ku tumatay waa baabi'isa kan idaacadaa lagala hadlaan sax ahayn ama fiicnayn kan jaraa'idka lagu qoraan in badanoo ka midi fiicnayn yacni aad buu u baabaa qualitigiisu wuu liitaa tayadiisu aad bay u liidataa warbaahinta dambe haddaan warbaahintii hore ammaanaya ta dambe way ceebaysanta kooxda saddexaadna waa macallimiintii iskuulleyda iskuulinkii dee dawlad baa jirtay oo daabacaysay maxaa la yidhaahdaa curriculumkii manaahijtii bugaagta u soo daabacaysay oo la dhigayay hadda markay dawladihii burbureen ee curriculumkii cid soo daabacda aanay jirin nin waliba meelaha kaluu kala yimi syllabus yar iyo curriculum waddanka markaad iminka soomaaliya gudaheeda tagto qaar miday kenya kala qaateen bay sitaan qaar yaman bay sitaan qaar sacuudiga miday kala yimaadeen bay sitaan waxaa laga yaabaa ilmahagu hadduu iskuulkan dhiganayo abha iyo waxbaa loo dhigayaa iyo shu'un ijtimaaciya u ah markaad kaa kala geysa kasale iyo meel kaluu dhiganayaa wax kalaa u ah markaad yaman geysa tacis iyo meelo kaluu dhiganayaa waayo dee dadkani ma haystaan buwaag saa daraaddeed waxay iska soo xambaarteen oo nin waliba ciddii sadaqa u siisay ayuu ka soo qaatay marka manaahijtii markay duntayna macallinka dambana isna kaljarka iyo dhaqankii muu ilaalinin dee waxa inaga dumay buu afku ka mid yihi dowladnimo qura inagama dumine dadnimadii soomaaliyeed oo dhan baa duntay waxay hidde iyo dhaqan iyo af iyo kaljar iyo waxay lahaayeen dhan bay dumiyeen welina inay dib u dhisaan waa diidan yihin sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta waxay xiirtaan geesaha timahooda haddayse ay jartaan timaha u daystaan sidii dhaqankii hore oo timaha ay daystaan diinta maxay ka qabtaa oo iska daayaan jeegada ay xiiranayaan mas'alada aadaabta ku saabsan waa mas'ale diiniya maalan diin ahaan ma bannaana timaa badhna in la reebo badhna la daayo badhna la xiiro waxyaabaha qariibkaa waxaa ka mid ah waxay soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen ayay iminka kuwan dambe ilbaxnimo ugu yaqaaneen maalan magaalooyinka waxaa lays odhan jiray hebel waa dhoorre dhoorka sooma taqaaniin
soomaalidii baadiyaa ku noolaan jirtay gafeedh iyo biyo iyo waxba ma jirin marka carruurta way u xiiri jireen laakiin inamada iyo hablahaas ay u kala soocaan qaarna food bay u samayn jireen qaarna dhowr bay u samayn jireen ma bannaana diin ahaan in qofka timaa inta in laga xiiro in yar la soo reebo magaalada marka la yimi qoladii magaalada joogtay qofkay leeyihiin waa reer baadiya ama waxba garan maayaan waa dhoorra bay odhan jireen iminkana dhoorranimadiiba faan idiin noqotay waayo gaal dhoorraa ba aragteen waxaa cajabta qaba gaalku markuu dhoorraha noqday ayaa dhoorrannimadii halka kan faan ka noqotay waxaan leeyahay dhaqan waliba oo dad leeyay wax xun wax san iyo wax wanaagsanba waa leeyay diimaha waxa loo soo dejiyey in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama marka ka diin ahaan muslim baynu nay dhaqankeenna waxa ku jira qaldan inaynu saxanna bayna saaran inaynu dhaqanka ka guurraayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldani ku jira inaynu saxanno dee kan ay weydiinaysaanna waa dhaqan gaalada ma ku dayannaa un ile kaama aha soomaalidii hore ma ku dayannaaye waxaad u jeeddaa un in gaal maraykanka degani kuwan baaskitka cayaaraha xiirtay dadkao dhammi wuu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhammi gadhku la baxay gadhkiiba ammaan noqday yacni gaalkaa markaa joogee maalintuu xiirtana inaad xiirato maalintuu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimoo kaljar iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanaya sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay soomaalida waxay ku hadashaa lahajaad badan lahjadee sax ah afafka marka laga hadlayo lama yidhaahda lahjadee saxa lahjaadku waxay ka wada mid yihiin af soomaaliga way fiicantahay in af soomaaliga grammarkiisa rasmigaa la helo oo baxthi la sameeyo la baadho waa suurtagal maalan eray afka ka mid ahaa inaad aragto oo xaafad ku dhintay ama qayb ka dhintay oo aan joogin lahjadda kale markaad timaado aad u imanaysaa markaasaad garanaysaa inuu eraygani af soomaaliga rasmigaa ka mid ahaa tusaale aan idi siiyo kasmo waxaa kasi maayo hadda koonfurun baa laga yidhaahdaa soo maaha waqooyi iyo haddaad tagto maxaa la yidhahaa kilalka shanaad iyo dhulkaa kasi maaya cidib kama hadasho laakiin haddaad adabkoodii ku noqoto inuu eray soomaaliyadoo saxayay baad garanaysaa adabkoodii hore haddaad dib ugu noqoto maalan cali dhuux markuu gebiyayey muxuu lahaa kunka caligariye qabaal kawskaga siiyey kasi waaye wuxuu waa qabaalo waanaad kabataa kasi waaye waa eraygiioo ficila ayuu isticmaalaya maxay yidhaahdaan maahmaahooda maxaa ka mid ahaa kas dumar oo kadaloobra kaaga dambeeyey kaad ku ogaydba maaha maxay kaloo yidhaahdaan kal caana galeen kasma galaa la yidhi kalka soo ma taqaaniin kalku waa xaggee kal iyo laab baan kaa salaamay soo ma maqashid ama kash iyo laabtaan kashanay sheegayaan xarafka sha baa raacay oo laamkaa go'a hal sha haddaad raaciso hasha buu noqonayaa kal buu ahaa sha baad ku dartay kasha buu noqday kal caana galeen yacni waa markay dumarka ka warramayaan waa naaqisatu caqli wadiin biluqa soomaaliya lagu yidhi kal caana galeen kasma galaa la yidhi bay leeyihin yacnii eraygaynu uga jeednaa erayga kan markaad maahmaha ku noqoto markaad gabayada ku noqoto waxaad arkaysaa inuu eray rasmiyo luqadii soomaaliyeed ku jira uu yahay laakiin inuu gobolladaa ka dhintay laakiin gobollada qaarkood inuu weli nool yahay oo si caadiya loo isticmaalo marka lahjaadku erayo badanoo soomaaliya oo xaggan ku dhinto xaggan ku nool baad helaysaa lahjaadku afkay ka wada mid yahay lama yidhaahdo kee saxa laakiin waxaa la raadiyaa formal language inuu yeesho laakiin lahjaadku afkay ka mid yahay bismi illahi raxmaan raxiim su-aasha ugu dambaysa waxaa weeyaan laba su-aalood baan isku qabanhayaa gabadh waxay leedahay halkan ay ku soo direen message waa qof dumara gabadh baa iga xanuunsan oo IC ku jirta kooma ku jirta haliigu soo duceeye qofkan kalena wuxuu leeyahay isna hal ii soo duceeye awlaad saalixa iyo caafimaad igu soo duceeye marka ducadaasaan kusoo khatimanayna sheekh fadal bismi illaah inta xanuunsanaysa ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo inta dhib kale haysato ilaahay dhibtaa kaa dulqaado inta baahi ubad hayso ubad khayr qaba allah ha siiyo
qof waliba wixii dhibe tabanayo ilaahay ha ka kor qaado wixii wanaaga uu jeceliyana Allah ha siiyo inteeni dhimatay Allah u naxariisto inta nool la dambigooda ha dhaafo sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam